Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada Daxeye Academy. Maanta waxaan dhigan doonaa cashirkeenu wuxuu ku saabsanaan doonaa taskbar. Waxaan ka hadli doonaa 4 qodob. Taskbarku waa shay aad iyo aad kombiyuutarka ugu muhiimsan marka la baranayo basigiisa. Taskbarku 4 qodob baynu ka baran doonaa insha Allah si qoto dheer leh. Taskbar toolbar qaybta la dhaho iyo qaybta lock and unlock taskbar iyo taskbar alignment iyo controlling app iyo sidoo controlling app ka control way taskbarku muxuu yahay taskbarku waa leadkan dheer ee xaggan hoose yaala calaamadan casaanadii saaray waa leadkan dheer wuxuu qabtaa shaqooyin badan appka oo lagu kaydiyaa applicationada furan halkan aad ka soo dooran karaysaa waayahay toolbar baran horta marka hore aan doonayna taskbar inaan wax ka bedelo right click baan odhanaynaa si horta aynu intaan ka baxno right click baan odhanaynaa right click markaan dhahno toolbar waa kan toolbar waynu tegaynaa toolbar haddii aan halka address ku dhufto meesha address cusub ay soo gelaya waa kan sidaan arkaya address marka haddaan ku qoro imika wax adigu iska masala ah get into pc website-kii baa laysoo kicinayaa halkan website-ka google-ka wax kaga qori lahaa baan halkan kaga qoraya automatic way wixii laygu soo diyaarinaya waayahay toolbar haddaynu qaybta ka baranay qayb linkiyaa jirta oo badanaa linkiyada lasoo dhigo oo linkiyada loo isticmaalo marka linkiga haddaynu highlight garayno si toos ah wuxuu imanayaa halkan hoose so marka links baa la dhahaa linkiyada loogu talagalay aan highlight ka qaadno waayahay waxaynu ka baran doonaa wax loo yaqaano desktop muxuu naga caawinayaa inaynu ishaar soo furno labada fallaadhooda kadibna all applicationskii oo dhani ay halkan ku jiraan hadday noqoto libraries device-kaas OneDrive-kaas oo kale pc waxyaabahaas oo dhan marka inagu uga faa'iidaysanayna taskbarka ayaynu desktop halkan soo dhigan karnaa so waynu ka qaadaynaa imika waxaynu ku noqonaynaa taskbarkeenii new toolbar baan odhan karnaa toolbara kale noogu soo dar imika haddaan click siiyo folderkaas ay soo baxaya ka haddaan click siiyo select dhaho toolbarku already halkaasuu tegaya so aan select dhaho waa kan Adobe folderkii Adobe halkan u imanaya markaad rabto imika inaad folder dhigato waad dhigan karaysaa halkan laakiin ma wanaagsana inaad so waayahay taskbarka haddaan right click siiyo cashirka inoogu xiga waxa weeyaan qodobka ku xiga waxa weeye sorry lock and unlock taskbar right click baan odhanayaa halkan bay ku taalaa lock the taskbar inaad lock garayso taskbarkaagu inuu mar walba lock yahay waa muhiim sababtoo ah haddii aan locked ka qaado oo aan kadibna isdhaho xaggaa u jeeda xaggaasuu qabanaya mar xaggaasu aadaya marna xaggaasu aadaya so waxaa jirta cilada inay ku qabsatay caynkaasa so marka hore waa inaad right click tidhaahdaa kadibna logga aad ka qaadaa hadday doono tusaale kale saasaa bay log u saaran tahay so intaad right click tidhaahdo baad logga ka qaadaysaa logga markaad ka qaado waad soo daraagarayn karaysaa kadibna loggaad ku xidhaysaa haddii loggu ku xidhan yahay ma daraagarayn karaysaa waa option kale oo si physical ah oo button aad dooranaysana waan idin tusi doonaa taa waxaa la dhahaa lock and unlock waxaynu imanaynaa taski alignmentigu waa cashirkaan iminka sameynaynay ee ahayd inaynu xaggaa u kaxayno xaggaana u kaxayno xaggaa u kaxayno iminka muxuu u socon laaya loggiiba aan log ka qaado so waa kan ciladaas waxaan u malaynayaa inta badan dadka way qabsataa so qofka ICT-ga ayuu iska saara qofka kalena uu ku dhibtoodaa waxaa laga yaabaa ciladaha aad iminka saa u xallin karto inaad kombiyuutarka dhan u masaxdo so aynu logga saaran waayahay kaasina wuxuu ahaa taskbar alignment waxaynu tegaynaa controlling apps waxaynu tegaynaa qayb setting ah oo taskbarka ku dhex taala waxyaabahan soo sheegaynay iyo waxyaabo kale oo dheeriyaba aynu ka baranay waa right click baan odhanaynaa halkaa taskbar settings ay ku qoran tahay settings ayaynu click siinaynaa click markaan siino optionskan baa inoo soo baxay imika loggiyaan sheegayay waa kaas isagoo button ah oo aad marna riixayso marna aad ka qabanayso haddii aan halkan automatic ahna waa automatically hide taskbar in the desktop icons haddii aan qariyo automatic boot taskbarka uu qarsamaya so marka aan sidaan dhaho markaan saa dhaho unbuu soo noqonaya marka kale wuu qarsan yahay
marka waan ka qaadaya tigta waxaan leeyahay automatic ka qaad oo isagu mar walba hay taagnaado. kan kalaa jira oo la dhaho automatically hide tablet modekaas haddii aan isagana ka qaado isagu waxa weeyaan hide taskbar in the tablet mode waxyaabaha modeska ah ee halkan yaala ama tabletka loogu talagalay aan computerka looguma talagelin. kan waxa weeye use small taskbar buttons waa in aan iconskan yareeyo iyo inaan weyneeyo. so imika haddaan click siiyo wuu yaraanaya already waa aragtaan. haddii aan ka xidhana way soo weynaanaya. bal waaye aan inoo yaree sen wuxuu aragnaa inoo weyneeyo waayahay. hoos baynu soconaynaa optionskan waa isku mid. halkan waxa wax ku yaala taskbar location on screen sidii aynu hore usoo sheegnay waa taskbar alignment oo taskbar alignment marba halkan tegay marba location ku dhacayay weeye. marka bottom xagga hoose bottom imika xagga hoose inoo yaalaa haddii aynu ku dhufano oo aynu nahno top xagga sare dhig xagga sare la geenaya. haddii aynu ku dhufano nahno left dhig left baa la geenaya. haddii aynu nahno right dhig midig baa la geenaya. so haddii top baa weecan top baynu dhiganaa waaye. combine taskbar buttons in la combine gareeyo macnaha taskbar buttonska shidan in magaranaysaayay saa la isu daba dhigdhigo oo la hagaajiyo weeye. marka wuxuu ku yidhi always had iyo jeer waa inay qarsanaadaan labelsku. labelsku waxa weeye tusaale ahaan oo kale buttonka programka shidan ee drive-ka ah haddii aan show dhaho wuu ballaaranaya. so imika aan dhaho when taskbar is full imika waa kan way buuxbuuxaan marka bahalihii kuwa aan kacsanayn caadi wey laakiin kuwa kacsan ee shidan saasay u waaweyn yihiin. ama never odhan karaa ama waxaan odhan karaa hide kaasaana fiican in hide la sameeyo waaye. qodobadaas aynu hore uga socono. kuwan waxa weye notification area. notification areadu waa intan notification area la dhahaa oo qaybtii notificationska iyo waxaas weeye. marka haddii aan notification areada tusaale ahaan oo kale notification areadaas oo kale haddii aan select gareeyo waxa yaala halkan intii item ee taala. iminka music oo kale uu yaalaa music haddaan ka xidho meeshuu ka qaadmay. mid nowga haddaan ka xidho wuu ka qaadmaya isagoo already. marka notification areada halkan laga maamulaa power safeka iminka batteriga yara halka ka muuqanaya haddaan ka xidho wuu ka qaadmaya isaguna automatically. waayahay inaga soo xidhitan taas waxay ahayd notification area. waxaa jira sidoo kale town system on icons on off inaad itemskaaga shido nabaqtiiso waa option system loo isticmaalo oo badanaa kaa caawinaya. volumeka codka haddaan xidho dee isna sidoo kale wuu ka tegaya oo kii unbuu la shaqo yahay. waayahay multiple display haddii aan u tagno news and interestka haddii aan xidho waa waxaa yar symbol ee halkaa yaala waxaa yar halkaa yaala wararka iyo waxyaabahaasaa lasoo geliyaa. marka haddii aan tusaale ahaan oo kale halkaa tago waa loogada iconka iyo textka qoraalka wada socda. haddii aan iconka oo keliya ka dhigana saasuu noqonay. markaas sidaas weeye. hoos aynu uga socono intaas weeye taskbarku. casharka maanta intaasuu ku kooban yahay. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.